xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin madax dhaqameed waxgarad iyo marshar fadan ayaa lagu qabtay hotel City Palace ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana lagu caleemasaarayay Suldaan Axmed Xasan Jaamac Bokor waxaana munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo madax dhaqameed tiro badan waxaana kamid ah hadaladoodii Suldaan Axmed Xasan Jaamac waxa aan ku soo xulanay ama beeshu ku soo xushay oo ku dooratay talo kadib kartidiisa aqoontiisa iyo isagoo ka dhashay guri looga talinayay beesha Ibraahim Sheekh Saxaaq 150 sanadood madow taashka ku saaray tigaad meel ku nagaatay iyo kii wax tooshahow suldaankii waynu dooranay waynu soo dhaweynay dhaqankaynu ku soo dhaweynay Suldaan Axmed waa nin nasiib leh maalin raxmadu inoo daday oo aynu nimco abaarti ka soo baxnay oo aynu nimcaysanaba Ilaahay ku hagaajiyay reerkuna uu kula hagaajiyay suldaanka ay keeneen beesha Ibraahim Sheekh Saxaaq waanu qaadanay waanu calama saarnay maanta laga bilaabo golaha salaadiinta ayuu ku jira waa suldaanka Soomaaliland mar haday qoladii reer bari ay yiraahdeen bari baanu ku geynaynaa laga bilaabo anaguna galbeed baanu ku geynaynaa casuumada koobadana qabo Hargeysa kugu caleema saaraya iyo gabiilay maadaama Camuud la ka soo baxday suldaanka cusubna waxaan leenahay ku soo dhawow madax dhaqameedka gobolka Burco kasto aad joogtaba Suldaan Axmedow saasa suldaan guud noogu tahay saasa meesha joogtaba ku metelaysa saasaanu kugu duceynayna lagu caleema saarayo Suldaan Axmed Xasan Jaamac Bokor waa soo dhaweynayna ku soo dhawaada suldadaha reer Soomaaliyeed ku soo dhawow Axmedow ku soo dhawow suldaan munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka Soomaaliland madax dhaqameed iyo dadweyne tiro badan kuwaas oo dhammaantood suldaanka Ilaahay uga bariyay in Ilaahay xilka u fududeeyo gabagabadii waxa munaasabadan soo afmeeray suldaanka cusub Suldaan Axmed Xasan Jaamac Bokor mahadnaqaya madax dhaqameedka ugu horeeyaan boqoradu salaadiinta cuqaasha xisbiyada qaranka ee waxgaradka iyo dadweynaha mujtamaca ka soo qayb galay rag iyo dumar waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dhamaanteen inagu hago diinta islaamka inuu maxaan ku leeyahay kitaabka quraanka aniga magaraysa lagu maamusay caaniyo waxa wada joojiyay Ilaahay waxaan ka baryayaa in kitaabka quraanka aan ku dhaqmo awal baan ku dhaqmi jiray laakiin ay sii kordhiyo Ibraahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco.